Ethiopia oo jabisay diiwaanka dhanka dhirbeerista iyadoona 12 saacadood gudahood lagu beeray in ka badan dhir gaadhaysa 566 milyan oo geed. ergeyga u qaabilsan cimilada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in iskaashiga cimiladu dib u qeexi karo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalka Mareykanka iyo sidoo kale Shiinaha. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee muuqbaaya Shakaal TV xilitaminteena waradna warku wuxuu idinkaga imanaya xaruntayada dhexe ee magaalada Nijigjiga waxa inta warku hawada ku jiraan idin la socodsiin doona anigu Axmed Maxamed Cusmaan Axmed Kuwish. waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garadwilwaal ee magaalada Nijigjiga Sheekh Caamir Aasif oo ka mid ah culimada ugu waaweyn ee dalka Pakistan. waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garadwilwaal ee magaalada Jigjiga Sheekh Caamir Aasif Iqbaal Altari oo safar dacwadeed ku yimid deegaanka Soomaalida kana socda markiiska al-dacwa islaamika ee dalka Pakistan waxaana sheekha si weyn u soo dhaweeyay culimada diinka deegaanka Soomaalida oo ay ugu horeeyaan gudoomiye ku-xigeenka xafiiska golaha arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida gudoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah culimada diinka iyo waliba xirta wax ka barta caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ugu horeyn waxa hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenka xafiiska golaha arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida Sheekh Cabdul Fattaax oo loo garan og yahay muftiga deegaanka gudoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida Sheekh Ahmed Haadi ziyaratu Sheekh Caamir zukhrun lana wa sharafun lana wa ziyadatun lana wa izzatun lana khaasatan fi baladina hada في دولة إثيوبيا إقليم الصومال خاصة شعب مسلم سني أشعري أغلبه صوفي أو كله. شيخ نرحبك بهذه الزيارة ونحبك لله سبحانه وتعالى. waxaan halkan aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno sheekheeni caalimka ahaa ee daaciga ahaa in soo ziyaartay Sheekh Amiir Caamir Iqbaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay sheekh soo dhawow waxaan filaynaa in insha Allah isaguna uu arki doono walaalihii oo aad iyo aad u soo dhaweynaya annaguna waxaan filaynaa inaan insha Allah ka faa'iideysan doono wixii muxuu xikmadiisa iyo aqligiisa iyo cilmigiisa hadii la yiraahdo aan ka faa'iideysan doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay sheekh soo dhawow barakallahu fiik marhaban ahlan wa sahlan حللتم أهلا ونزلتم سهلا إن شاء الله بارك الله فيكم. inta ay soo dhaweynta sheekhu socotay ayaa waxa sheekha sidoo kale iyaguna soo dhaweeyay qaar ka mid ah xirta wax ka barata caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyagoo sheekha ku soo dhaweeyay amaan iyo waliba bogaadin. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا يا نور العين. ugu dambeyntii Sheekh Caamir Aasif oo warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay culimada diinka sida meeqaamka sare leh u soo dhaweeyay waxa uuna sheekhu sheegay in uu deegaanka Soomaalida u yimid sidii uu arki lahaa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxyaabaha uu sheekhu ku amaanay deegaankana waxa ka mid ah in ay jiraan dhalinyaro aad u daayar oo jecel nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo kuna soo dhaweeyay amaanta nabiga iyo waliba saliga nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uuna sheekhu sheegay inuu hordhac u yahay wafdi culimo ah oo caalami ah oo imaan doona dowladda deegaanka Soomaalida Axmed Cabdiraxmaan Aadan Axmed Tudhi Shakaal TV Jigjiga. Ethiopia oo jabisay diiwaanka dhanka dhirbeerista iyadoona 12 saacadood gudahood lagu beeray in ka badan dhir gaadhaysa 566 milyan oo geed. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in Ethiopia ay taariikh ka samaysay beerista in ka badan 566 bilyan oo geed oo laga bilaabo waaberiga ilaa iyo maqribka inta u dhaxaysa taasoo jabisay rikoodkii hore ra'iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay fiidnimadii ayaa u hambaliyay dadka Ethiopiaanka ee ka qayb qaatay beerista dhirtan qorshaha lagu beeriyo 500 oo milyan oo geed oo laga bilaabayo qorax soo baxa ilaa iyo qorax dhaca ayaa la dhaafiyay in ka badan 66 bilyan waxaana la ogaaday
malaayiin Itoobiyaan ah ayaa ka jawaabay baaqi ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ee ahaa in mar kale taariikh la sameeyo iyagoona ku beeray nus bilyan geedo dalka oo dhan 6 subaxnimo ee saaka xubnaha hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale diblomaasiyiinta fadhigoodii yahay magaalada Addis Ababa ayaa iyaguna ka tagay dhaxalkoodii taasoo qayb ka ahaa intisaha dhaxal reebka ee cagaarinta guud ahaanba Itoobiya iyadoona dhammaanba ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalkan Itoobiya iyagoona muujiyay dadaal iyo sidoo kale dhabaradayga wareegii labaad ee intisaha dhaxal reebka cagaaran ee la bilaabay xilli ciyaareedkan qaranku waxa uu ka shaqeynayaa inuu beero in ka badan 25 bilyan oo geedo laga bilaabo 2023 ilaa iyo 2026 ergeyga u qaabilsan cimilada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in iskaashiga cimiladu dib u qeexi karo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalka Mareykanka iyo sidoo kale Shiinaha ergeyga cimilada u qaabilsan dalka Mareykanka John Kerry oo ku sugan dalweynaha Shiinaha ayaa u sheegay saraakiil sarsare oo ka mid ah Shiinaha in Shiinaha iyo dalka Mareykanka looga baahan yahay inay u adeegsadaan iskaashiga cimilada si ay dib ugu qeexaan xiriirkooda qalafsan isla markaana ay horseed ugu noqon lahaayeen sidii ay ula tacaali lahaayeen kulaylka caalamiga booqashadan Kerry oo qaadan doonta 3 maalmood oo ku joogi doono Shiinaha ayaa ujeedadu tahay dib u soo nooleynta iskaashiga cimilada ee ka dhaxeeya hawada sare ee dunida ayaa ku soo beegmaysa jado cimilo oo aad u xun rajadeenu waa inay tani bilow u noqon karto qeexitaanka cusub iskaashi iyo sidoo kale karti lagu xalinayo khilaafaadkeena ayuu yiri Kerry isagoona dhigiisa diblomaasiga sare ee dalka Shiinaha iyo kulan kula yeeshay hotel weyn oo dalka ku yaala Shiinaha Kerry ayaa ka digay in xaaladu ay ka sii dari karto xagaagan waxa uu soo xigtay warbaahinada Shiinaha ee xarun cimilo oo ku taala gobolka Xinjiang ee waqooyi galbeed ee Shiinaha iyadoona diiwaan gelisay heerkul gaadhaya 52 degree centigrade ergeyga Mareykanka ee cimilada Kerry ayaa kula kulmay hotel ku yaala magaalada Beijing isniintii dhigiisa Xinjiang iyagoona ku dhawaad 12 saacadood kulankoodu u qaatay waxa uu Kerry Xinjiang ku amaanay shaqada adag ee ay sameeyeen intii uu socday wadahadaladoodu booqashadan saddexaad ee Kerry uu ku tago Shiinaha isagoo ah ergeyga cimilada ee Mareykanka ayaa calaamad u ah dib u soo celinta rasmiga ah ee diblomaasiyadeed ee cimilada heerka sare ee u dhaxeeya dalalka xogayihii hore arrimaha dibadda ayaa sargaalkii saddexaad ee ugu sareeya Mareykanka ee booqda Beijing bishii la soo dhaafay inkasta oo Kerry damcay inuu xayndaab ku sameeyo arrimaha cimilada ee khilaafaadiyada diblomaasiyadeed ee ballaaran ayaan waxa uu sheegay in booqashadii hore ee Kerry ee sanadkii 2021 iyadoona ay jireen walaacyo ballaaran oo ku xeeran marka laga soo tago way aragnimada iyo sidoo kale haddii aan ka shaqeyno waxaan heli karnaa dariiq mar kale si loo xaliyo caqabadahan ayuu yiri Kerry dunidu runtii waxay eegaysaa hoggaankaas iyo sidoo kale arrimaha cimilada وهاجاك داود يلو حقوق كاسين ودن بوركي دورنمو يا سيدة توسكا ودهان السين مقبعية شكال تي في حل تمنتين وردنا واحد وركي دي لسه عسيني أنا أحمد محمد عثمان أحمد كويشين داود يال أنت ورك ورك حيوكو كل مدونا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.